السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا خيارتك وحنا نسألك الصومالي نتوي كلاسروم. وحنا نسعودي كورس كلام قبعة كومبتية سكوريتي بلاس وحنا صورنا من شابتر كي كوباد. وحنا ما أنت أما في ذي وهرب لونا شابتر كي لبعض وكور رماي أنت فاهم بتشيا ريسكس خطرة قومي يمسر أي كمبيوتر أما داتو أما نتورك أما سيستم سوغارا. waxa marka laba qaybood oo qaybinay mutasha riskiska waxa qaar systems ah oo barnaamijyo iyo qaar weerar oo attacksa sida dartii waxaan bilaaw doonaa mid doon soo qaadan doonaa fairaskan ku horeyn doonaa waxaan ku eegsin doonaa wormka trojanka season eegsin doonaa marka videoga waxaan ku eegi doonaa doo leedmo fairas systemka ama waxa loo yaqaan fairasku muxuu yahay imsa qaybood uu qaybsamaa nolosheena fairasyo imaade oo computer saameeyay ma jiraan intaasaan ku eegi doonaa hadduu alla idmo haddaba intaynaan faraska gelin erebixin laazim ah ama terminology laazim oo marka la joogo farasid waxaa laga warramayo in ardayga ogsoonaada ayaa jirta erebixinta maxaa loo yaqaanaa erebixinta waxaa loo yaqaanaa malware erebixintaas waa laazim malware waxaa loo yaqaanaa waa malicious code system waxa weeyaan waa system walba oo dhibaato wata waxaa loo yaqaanaa malware ama system walba oo aanad adigu rabin shakhsiyan waxaad u tixgelin doontaa inuu yahay unwanted system inuu yahay nidaam aan la rabin waxaad bixin doontaa malware marka erebixinta bisla faanay waa each barnaamij walba waa kullu barnaamij daar yudlaq bihi malware barnaamij walba dhibaato wata maxaa loo yaqaanaa malware baa loo yaqaan barnaamijyada dhibaato wata maxaa kamid ah firaski baa kamid ah wormki baa kamid ah trojanki baa kamid ah keyloggerka oo mid aan dul saagi doono marka erebixintaasi waa erebixin kaamil ama waa general ah barnaamij walba dhibaato wata ama hore u jiro ama maanta soo baxo ama 3 sano ka bacda soo baxay erebixinta loogu yeeri doono magac loogu yeeri doono magac loo yaqaan malware hadaba waxaan iman doonaa kan fiidiyoon balansanay ama casharkan oo ahaa fairas system inaan fairas-ka fahno fairasku muxuu yahay horta waxaan leenahay waa barnaamijka ugu caansan ee dhibaatada wata ee loogu garasho baday ama loogu yaqaan cid wala computerka cid wala oo computer wax ka baratay ama ayaanay computer ba baranay tusha waxay ka maqashay computerkayga fairas baa ama computerkayga fairas baa ku dhacay waa ereyga ugu badan ee ugu caansan ama barnaamijyada dhibaato wata loogu ogaal badan yahay marka fairas system waxa leena waa mid kamid ah barnaamijyada dhibaato wata oo malware-kii soo iskaliya malware-ku waa general terminology hadda fairas waxa leena horta waa barnaamij sida barnaamijyada kale loo sameeyay laakiin waxa ka duwan ujeedada loo sameeyay sababka calculator ma jiro computerka calculator kuma jiro fairas-kuna waa noocaas oo kale waa barnaamij computerkaaga ku jiri karaya ama sameynaya program laakiin ujeedada loo sameeynaya ay tahay dhibaato astaanta labaad uu leeyahay wuxuu leeyahay astaan loo yaqaan self replicate oo istaabaca macnaheedu maxay tahay haddii computerkaaga fairas ku jiro oo cid kale ay timaado oo flash ay galiso oo flash inta laga saaro computer kale la galiyo flash taas raacaya oo waxa weeyaan replicate u istaabaca sidoo kale wuxuu saameeyaa programyo kale saameeya oo barnaamijyada kale computerka ku jira ee markii horeba loo soo asteemeen saameeya ayuu saameynaya sidoo kale computerada kale ee agtaada network-ka ku wada jirta anigana saameyn ku yeelanay ama uu ku faafaya marka waxa leenahay qeexitaankaasi horta waa mid kamid ah barnaamijyada dhibaato wata kaasoo la sameeyay oo wax isagu sameeyay maaha kaasoo laakiin ujeedada loo sameeyay ay tahay harmful inuu dhibaato geysto dhibaatada uu geysanayaa wuxuu geysanayaa kolba systemka loo soo asteeyay inuu dhibaato geysto isagoo astaantu leeyahay self replicate u istaabaca u istaabacaya computerkaaga weliga ku jiri maaye computerada kale marka wax u dirjid ayaa feelashooda u dhaxraacaya ama USB flash u raaci doona taas waa taa fayrasyada hal nooc kaliya male fayrasyada wuxuu leeyahay dhowr nooc buu leeyahay dhowr noocyada maxaa ugu caansan afar mid baa ugu caansan afarta nooc maxay kaliya mid loo yaqaano boot sector virus waa nooc koobada fayrasyada kani yu saameyn ku yeeshaa laakiin uu weerara wuxuu weerarayaa operating systemka computerkaaga ku jira ilaa uu computerkaaga uu ka yeelo mid aan waxba qaban karin marka viruskan loo yaqaan boot sector virus waa virusyada xooga saara ama attack gareeya ama target gareeya operating systemka computerkaaga ku jira hadduu mar ku dhacana operating systemka iyo computerka mar dambe loo yeedhi maayo nooca labaad ee virusyada waxa jira mid loo yaqaan macrovirus waxa leena waa virus kaas wuxuu weerarka ama target gareeya inuu dhibaato u geysto office programs barnaamijyada office programs loo yaqaan sida Word-ka Excel-ka PowerPoint-ka Access-ka iyo wixii kale la halmaal Outlook waxa jira nooc saddexaad oo virus oo loo yaqaan files virus virusku
waxa uu samagiisa kaaga muuqda fayraskan waa taageeraya faylasha computerkaaga ku jira faylasha kale ee computerkaaga ku jira ayuu taageeranaya nooca afraad ee fayrasada waxa loo yaqaan multi party virus waxa weeyaan waa virus kaasoo isku qabanaya laba shaqo iyo wixii ka badan tusaale wuxuu isku qabanayaa shaqadii ahayd boot sector viruska iyo macro viruska oo inuu operating systemkiina saameyn u geyso office programskiina saameyn u yeesho adigu waa laba shaqo iyo saddex shaqo oo virus ay qaban lahayn buu isku qabanaya afartan nooc ee virus sida ma haysan waa si general virus loo yaqaano boot sector virus oo dhibaato u geysa operating systemkaaga ama operating system kaasa noqdo Linux operating system ama Windows operating system ama Mac operating system ku doona noqdo macro virus waxaan ku sheegay operating system kaas xooga saaray inuu burburiyo program andaho office programska sida wordka wixii virus kan waxaan ku sheegay operating viruska kaasoo weerar u geysanaya ama dhibaato u geysanaya faylasha computer ku jira multi party virus waxaan ku sheegnay waxa loo yaqaan mutacaddid al-ahmaam viruska shaqooyinka badan qabta marka laba shaqo iyo wixii badan ay virus qaban lahayn buu ku qabanaya hadda waxaan eegi doonaa virusyadii nolosheena soo maray ama intii dunida maalintii virus uu abuurmay kuwii ugu caansanaa ee soo maray dunida waxaa ka mid ah virusyada nolosheena caadiga soo maray virus loo oran jiray Bene virus oo dhacay 1986 virus loo oran jiray Chernobyl virus oo dhacay 1998 mid loo oran jiray Michangalango virus 1999 Melissa virus 1999 Steel virus 2001 marka waxa uu fayrasidii ugu weynaa ugu caansanaa ee dunida soo maray kuwaas oo dhibaatooyin aad weyn geystay qaar kale way jira sida Eggscope virus mid kale loo yaqaan Brantok virus Retro virus way noocyo badan oo dunida soo maray oo dhibaato geystay way jiraan intaasaan kusoo gowgeynaa viruska arimo kale oo la xidhiidhna insha Allah marka aan kusoo noqon doona laakiin maadaama marayna course-keeni loo magacay Computer Security Plus ka channelka intaasaan kusoo koobina. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.